qaar ka mid ah saraakiisha sirdoonka iyo sahminta u tagay jasiiradda Greenland ee hoos tagta boqortooyada Denmark ee u dhashay waddanka Jarmalka ayaa lagu soo waramayaa in 15 ka mid ah saraakiishaas ay ka soo duuleen Greenland iyaga oo u soo kici timay magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark halkaas oo kulano kala duwan ay ku leeyihiin saraakiisha kala duwan ee militariga iyo sirdoonka Yurub kuwa oo isu diyaarinaya dowladtus military in ay ka sameeyaan baysasna ka sameeyaan jasiiraddan Greenland ee muranku uu soo geliyay madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump oo sheegay in uu damacsan yahay in uu la wareego jasiiraddan xoog iyo xeelad midii ay noqotaba arrintan oo walwal iyo walaac badan ku abuurtay dadka reer Greenland iyo Denmark iyo sidoo kale Scandinavian-ka iyo guud ahaan qaaradda Yurub ayaa lagu soo waramayaa in wadamada Yurub ay ka baraarugeen inay isku diyaarinayaan in ay heel iyo hooba la garab istaagaan Denmark iyo dadweynaha ku dhaqan jasiiraddan Greenland si ay isaga difaacaan cid kasta oo soo weerari karta arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wadamadan ay go'aan ku gaareen in ay ka sameeyaan jasiiraddan dowladtus military iyo tababara ciidan oo heerkii ugu sarreeyay ah kuwa oo isu diyaarinaya in ciidamadooda iyo hubkooda ay u daabulaan jasiiraddan Greenland si ay dowladtuskaas military ugu sameeyaan wadamo badan oo ay Norway ka mid tahay ayaa iyaguna u diray saraakiil sahmin ah kuwa oo sahminaya habka iyo sida ay jasiiraddaas ku gaari karaan ciidamadooda iyo qalabkooda kala duwan si ay qayb uga noqdaan dowladtuskaas military ay qorsheynayaan wadamada midowga Yurub arrintan ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay in si walba ha ku qaadatay uu doonayo jasiiraddan in uu kula wareego maadaama uu sheegay in ay tahay halka laga hagi doono amniga qaranka dalkaasi Mareykanka wuxuuna ku goodiyay inaysan jirin cid hor istaagi karta damaciisa taasoo ka caraysiisay wadamo badan oo Yurub ah gaar ahaan kuwa ku jira gaashaanbuurta NATO oo qaarkood sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in jasiiraddan si xoog ama xeeladba uu kula wareego waddankaasi Mareykanka ra'iisul wasaaraha waddanka Denmark ayaa horey waxa ay u sheegtay in haddii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu damaciisa ku wajahan jasiiraddan uu u adeegsado military ay noqon doonto burburkii iyo halkii lagu biray lahaa gaashaanbuurta NATO oo in muddo ah soo jirtay arrinta jasiiradda Greenland ayaa waxa ay Yurub iyo Mareykanka ka dhex abuurtay xaalado aad u kacsan kuwa oo laga yaabo in calaaqaadka iyo xiriirka soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeya Yurub iyo Mareykanka uu burbur aad u baaxad weyn soo wajaho halka warka kiisa ugu doorkoran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine